maamulka magaalada wajaale ee dhinaca Somaliland iyo maamulka dhinaca shishe ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta si wada jir oo lala ballaaran ugu qaaday khashintuulmay toga u dhaxeeya labada daamood ee magaalada wajaale kaasi oo guud ahaanba joojiyay biyihii toga marayay khashinkani tuulmay toga wajaale ayaa ah mid ay dadweynaha ku kala dhaqan dhinaca Itoobiya iyo dhinaca Somaliland ay ku soo daadiyaan waqtiyada habeenkii ololahani nadaafadeeda lagu qaaday toga wajaale ayaa waxa maamulada labada dhinac kala qayb galay barsaabka gobolka Gabiley ibraahim dadweynaha reer wajaale ardayda dugsiyada wax ka barata magaalada wajaale shirkadaha isgaarsiinta ururada haweenka ciidanka booliska waxaana daabulay iskarogooyin loogu tala galay inay geeyaan goobaha lagu shubo khashinka barsaabka gobolka Gabiley oo ka hadlay ololahani nadaafadeed ayaa sheegay in goobtani khashinku buux dhaafay ay tahay wajahada laga soo galay labada dal ee Somaliland iyo Itoobiya waxaan olahan maanta u bilownay marka dadka kiilka s.land iyo federaal dawladda Itoobiya ka imanaya ay ka soo socdaan marka ay xadkeena soo galaan ay toga arkaan waxa de muraayidi weeyaan waxaan u aragnaa in loonayo qoladan nadaafada ma leh ala kulli xaal marka waxaan ku talagalay in aan saaka olol xadda qaadno in kasto sidii aan ugu talagalay aanay u soo bixin oo ay shirkadaha iyo ciyaar iskuulku ay noo yimaadeen dadkii bakhaarada lahaa huleelada lahaa waxaan daadinayay toga ku daadinayay midna ma iman waxa kale oo barsaabku xusay in inta sanadkan ka hadhay ay dhameystirayaan biyo-gelintii degmada toga wajaale iyo dhismaha isbitaal weyn oo ay yeelanayso magaalada wajaale xaashi maxamuud cabdi oo ah gudoomiyaha degmada toga wajaale ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay ololahani nadaafadeed ay ku qaadeen toga maanta waxaanu bilownay ololo weyn oo aynu ku nadaafinayno magaalada khaasatan toga hadee jaalaale aad iyo aad baynu ugu ceebaysannahay arrinkaasi toga sababtana waxaanu leenahay waa dadweynaha sababtoo ah markaanu nadiifinaba waa lana daba dhigaya halkaa weyn ee ballaga ayaan ku samaynay oo aan tala galay in lagu guulaysaa aragta qaybkaskagooyin togaya shaashka toga kuleeyaa casane toga ku daadinaysaan nin walowba jawaab ku rid annagaa bartaa ka qaadana annaga halkaa keenay waa markii labaad ee labada dhinac ee ay ka kooban tahay magaalada wajaale ay iska kaashadaan olole nadaafadeed oo ay ku qaadaan khashinka buux dhaafay toga wajaale mukhtaar Nuux ibraahim cable TV toga u dhaxeeya labada daamood ee degmada toga wajaale.